gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yarow Xayle Shaarib Bacde ayaa maanta kormeer ku tagay mid ka mid ah wadooyinka jeega ah ee dhismahooda uu hadda ka soconayo magaalada Cadaado. Dhismaha wadadan waxaa kaalin weyn ka geysanaya dadka deegaanka oo markaasi laga ururiyay dhaqaalaha lagu dhisayo jidkan, halka maamulka degmaduna uu kaalin weyn ku leeyahay dhismaha jidkan. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado ayaa xusay in ka maamul ahaan ay si weyn u soo dhaweynayaan in dadka magaaladu ay u istaagaan horumarinta magaalada. maanta ay taariikhdu tahay 5 bisha 2022 waxaan maanta aan ka bilaabaynaa wado bataqana ka baxda masaajidka tabliiqa ka timaada oo soo dhacda wadada Gadiis, wadadaas oo ay dhisayaan dadka deegaanka degan waliba mataqana wadadu ay dhaxmarto dadka ayaa waxa ay sameeyeen in ay isku darsadaan dhaqaale oo boos lacag laga qaaday booska walba lacag laga qaadana ay wadada inay uga shaqeeyaan ay go'aansadeen ayaan maanta wax kala qayb galeynaa bilowgeedii wadada in la bilaabo oo laga shaqeeyo waxaana sabab u ah maanta oo faham weyn laga haystaa cid walba oo mataqana maanta jid haysata inay jidkeeda si mataqana ay u dhistaan oo ayagu ay leeyihiin oo ku talagala cid walbana xaq iyo waajib waxa loogu leeyahay horteeda inay dhisto oo waxyaabo badan waxa jira aan hadda ka hor tilmaamo ka bixinay oo dad noocaan oo kale ay jid ay inta dhiseen oo hortooda ay ka dhiseen guriyada ka dhiseen ay wali kuwii ka sii xageeyay ay waliba dhaqaaqi laayihiin marka waxay leeyihiin dhul wadada haystana dhulka uu gaarayo qiimihiisu qiimo aad u kulul oo wiiraan 7,000 ayuu gaaraya waxaana laga yaabaa $300 wax la mid ah inuu mataqaanaa gurigiisii hortiisa ku camiro marka waxaan rajaynayaa insha Allah haduu maamul ahaan dawladda hoose degmada Cadaado sida ay dadkan ay naftooda gurigooda hortooda ay u qurxinayaan wadooyinkan u qurxinayaan in cid walba ay saameyn doonto saameyntaasna dawladda hoose degmada Cadaadana waxay soo gaari doonto go'aamay qaadan doonto ay ka qaadan doonto dhulka wadooyinka iskale ee la rabo in la dhiso cid dhisa weeyda wax rabna go'aamo inaan ka qaadano go'aamankaasna waxay ka soo bixi doonaan dawladda hoose ee degmada Cadaado waxaan rajaynayaa dadka wadadan iskale aadan uga mahadcelinaynaa waxay qurxiyeen gurigoodii waxay noo qurxiyeen deegaankii mar walbana waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino dadka nooca shaqooyinka wada anaga inaan garab istaagno cid alaala cid hor istaagtana aan anaga talaabo aan ka qaadno tusaale ahaan hadda wadadan aan taaganahay waxay ahayd nin dhul asaga oo leeyahay amal ayuu u haystay wadadii waxa ka bixiyay maamulka ka bixiyay asagana waa ku qarcinay in wadada oo furo oo waxay maadaama xilli aan dhaweyn mataqaana oo dalku oo dawlad la'aan aha ayuu ka iibsaday dadka iibsaday haddana wuxuu awooday inuu wadadii furo cid walbana waxaan rabnaa inaan uga digno wadooyinka ummaddu ay leedahay ka dhaxaydo waxa ka masuula dawladda hoose degmada Cadaado ka masuula ma gada karo ma waxaysan karo talaabooyin kuma qaadi karo cid wada laga yeelayo inay xirnaatana ma jirto cid hadda ka bacdo horteeda dhisi diidana ma jirto talaabooyinkaasna go'aamanka dawladda hoose ay soo saari doonto qayb ka noqon doonta aadna waxaan uga mahadcelinaynaa cidda wadada ka shaqeynayda hortooda ay tahay dhaqaalahana ku bixiyay aadan uga mahadcelinaynaa cid kastana inay mataqaana talaabada qaadatana waa rajaynaynaa waxaan si kale oo wanaagsan la shaqeeyay kabaniga ximan oo shaqadan aan dhahnay shaqadan inaan dagaal qabataan rabnaa oo asagana nagala qabanaya oo tabartiisu ahayn oo suwax oo batqaana oo ku shaqeyso waxayn oo shidaalkii aan bixinayno oo shaqaalaha batqaana biilkooda aan batqaana ay dadkan dhiibayaan waxaan rabnaa marka asagana inaan uga mahadcelino dalka iyo dadkan anaga iskale inaan u shaqeysano quruxsano bilicdeena iyo magaaladeena anagana waajib nagu tahay cid walbana ha ogsoonaato gurigeena iyo dalkeena hadayna quruxsan cid naga xageeda inaysan qurxinin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.